إلا الجعلية جاوم موغتاي geela ayaa ugu qaalisan amaba ugu qiimo badan dunyada la dhaqdo walow geeslayduna muhiimadeeda ay leedahay sida lo'da iyo ariga Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada geela qaniga amaba hodanka ku ah inkastoo waayadii dambe meelaha qaar uu ku yaraadayna waxa xusid mudan inay jiraan deegaano kale oo geelu ku sii badanayo malaayiin geel ah ayaa noo daaqda maadaama aanu leenahay dhul ballaaran oo dhaqashadiisa ku wanaagsan waxaana ka helnaa faa'iidooyin aan la soo koobi karin geela waxaa laga helaa godol iyo gaadiid haddaad yadatana wuxuu goynayaa hub lacag iyo xoolo kale intaba waxaa lagu dhiibaa magta ama badiyada taasoo laga yaabo in qabaa'ilo isu mideeya sahanayay ku kala badbaadaan awrta oo geela ka mid ah waa gaadiid xoog badan oo xilliyada geediga lagu guuro haddii meel fog loo hayaamayo iyo haddii uu dega rogasho yahayba dhibaatiya adoo gaajo qaba dhaxanta jiilaalka dhowr caano laga soo liso yara dhanaanaaday nin dhedhamiyey wuu garanayaa dhulay qaboojaana goorta dhantaabaa jidhkaba dhididku qooyaaya ragga laxaa sii dhowrayow dhaqasha waa geela sidaasi waxaa yidhi abwaan gabay ku cabbiray adkaysiga geela xilliyada abaarta iyo jiilaalka iyo in wakhtiga adag caano lagu baahi beele laga helayo caanaha geelu waxa ay dhisaan seedaha lafaha murqaha qofkana uma yeelaan baruur muuqata laakiin waxay jirtiisa ka dhigaan mid isku soohan oo xoog badan hilibka caanaha iyo kaadida geela waxaa lagu daweeyaa cudurro badan taas ayaana keenaysa in iminka dadyowga caalamka ku dhaqano sii gartaan amaba sii fahmaan muhiimadda geelu leeyahay allow garabsi geel ninkii dhaday guul allowsi gunma weydoy gaar haddaan dayo gaar labaadayo garba buule goon hilowley gaashireedli lo'da dhiiqda laga maalayiyo dhayda iyo xoorku dhudhunkay biyaha kula jirtiyo dhabarka weeyaane mar hadday abaaruhu dhacaan dhimata geesleeye ragga laxaa sii dhowrayow dhaqasha waa geel ninkii dhaday guul allowsi horaantii bishii dulxija 1439 ee taariikhdii hijrigoon ayaan safar u galnay deegaano baadiye ah iyo wara geelu ka cabo oo ku yaala gobolka Jubbada Dhexe allo waadan hogan illalaayo ona kula hogan illalaayo hagoog leeydii illalaayo halkan waa warti kudiyaaq oo koonfur galbeed ka xigtay deegaanka Arago oo hoostaga degmada Bu'aale waxaana maalin waliba u soo arooray geel tiro badan oo jihooyin kala duwan ka imaanaya bartigtigan leey illalaayo allo baarka illalaayo bilaawafli illalaayo nin waliba oo geeleyda ka mid ah waxa uu ku mashquulsan yahay waraabinta geela waxaana maskaxdiisa iyo miirkiisuba ku fogan yihiin darka biyaha oo neef waliba dacalka kula jiro illalaayo markaan ku arkaan illalaayo ulmareerti illalaayo eebadaan siiday tani waa shaqo sahlan marka loo eego meelaha qaar oo ceelal dheer oo wadaan lagu cabo geela lagu waraabiyo amaba lagu shubo maxaa yeelay halkan waxaa ku yaal waastooyin tubooyin toos loogu soo furayo kuwaas oo ayana biyaha warta u dhow ka soo qaadaya illalaayo sooda geela ayaa isku garbinaya darka maxaa yeelay neef waliba waxa uu doonayaa in uu biyaha ka oombeelo geelu waxa uu biyaha aad u cabaa marka loo heeso sababtoo ah waxa uu dareemayaa in kalgacal loo hayo noloshiisana laga taxadarayo qaar ka mid ah geeleyda ayaa nooga warramay geela iyo waxa uu galo
iyo dhibkiisa intaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaaga? Cabdirashiid Sheekh Maxamed Aliya. Abshid geelaya qasada ka muuqata waa dadka ka waraabinaya. Waxaad wartaa geel wuxuu galay wuxuu guday. Ma sha Allah geel wax badan buu galaa. Ummadda Soomaaliyeed qiimo badan buu u leeyahay. Wax weyn buu galaa. Waa nolosha koobaad oo Soomaaliyeed ay ku tiirsan tahay geel. sida iyada awgeed geel wuxuu galaa oo xasuusnahay hadda magtaal iskaga bixiyaa waa lagu guursadaa oo gabdhaha lagu guursadaa oo laga geeyaa oo waalidiintood loo geeyaa geel ma sha Allah wax badan buu galaa waa la maalaa gaal dawlad way gaal dawlad way dawladii la qaban waayeen asaga laga qaban waaya ma ogeey markii dawlad raba in la qabto oo dawlad raba gacanta lagu dhigay gaal laga qabta sharax marka waxyaabaha lagu dheefo waxa lagu dheefaa horta markayna caanaha cabaan caanaha waa ku qoraan anisa waa ku qoraan hilibkiisa markii la cuno waa lagu qoraa hilibkiisa markii la cuno waa lagu qoraa kaadiisa markii ninkii jirana cabo bu'aha uu ku caafimaada waa bu'ah waa la rabtaa waa lagu guura oo dhulka daaqan oo doogan lagu guura hatta dad wadaas inta soo miliya 20,500 dollar baad kala baxaysaa neefku weyn halkii neefka oo ama ilmaha wata ama neef weyn ha noqday inta soo faa'iido gaar lagu qaba waa si aad u maxad ka shaqaysaa anagu inaanu geelada wareysano الله إلا الله أنا كروغن إلا الله حقوق ليدي إلا الله حدكو شيرين إلا الله يوهير قول لي إلا الله meelo badan oo dhulka koonfurta Soomaaliya ka tirsan waxa ay leeyihiin cayayaan badan oo geela dhiiga ka jaqa kaas oo aakhirka cudurro keeni kara cayayaankaas waxa kamid ah shilinta qaniinka baalka iyo kuwa kale sida awgeed geelaydu had iyo goor waxay diyaar u yihiin la dagaalankooda waxaadna arkaysaa iyaga oo geela sun ku dhayaya xataa marka uu darka amaba kaalinka loo soo arooriyay joogo الله وعدن هوغن إلا الله أنا كروغن إلا الله حقوق ليدي إلا الله حدكو شيرين إلا الله يوهير maalinta koowaad ee shaqada xoogeeda aanu qabanay waxaanu la kulnay geel fara badan markii la galbeestay ayaa nin waliba geeliisa u fuliyay halkuu ka soo arooriyay annagana gabalka ayaa warta noogu dhacay geela la dheelmayaa waxa uu xasuusinayaa noloshaydii kuraynimada oo aan geeljiro hawsha uu caaboon ahaa inkastoo markaa kadib aan dhanka magaalada u weecday go'aankeenu waa inaanu caawi xero geel ku hoyano si aanu xog dheeraada oo geela iyo nolosha geelayda la xiriirto uu soo bandhigno waxaan galabta ballan la dhiganay Cabdirashiid oo ka mid ah raggii aanu wareysanay wuxuuna noo tilmaamay meel aan masaafadeedu fogeyn oo aanu lug ku gaari karno in geelu caawi ku hoyanayo uuna soo dhaweynteena u diyaar garoobayo Cabdirashiid bal ka warnaya goobtan iyo bal geela aad soo hoyseen iyo dabkaad kulaalaysa kulaal meeshan waa geel xariisa weeye waa caawana soo fariisanay hadii ilaahay yiraahdo habeen dambe meel horan u sii hooyanaynaa waana deegaamada aan kulba mid degnay ka mid tahay meeshan way bal noloshan ka war noloshan anaga harsanay nabata hay ma sha Allah way waati halkan caano ku dhamahayay dhalinyarada ku shahada karsan hayay waxa dhibaato ama aragnaa noloshaana ku nooleen inta badan adduunyada intaan ku dhaqnayn dibna inaan ugu sii noolaanaan jecel hadii ilaahay yiraahdo dabka maxaa loo shiday geelana loo shiday dabka hay geelana eegan haye dugaaga uga wareegan haye annaga kula hayno dhaxantaan ka dugsanaa waa iskaga dul sheekaysanaa halkaan hadhow saxanina insha Allah ad kulaalaysa bahalada nooga wareegan haye halaqyada iyo ka wareegta dabka oo nacad inay ku soo dhawaadaan libaax iyo waraabaha kala markaa waxa soo dhan way ka wareegan dabka ma soo dhawaan hayaan marka dabka la shiday way carari oo imaan hayaan halkaas iska raacayaan hadii galay dul ka soo galaan dul ka soo gulaabo la arko la dareemana hadan dab kala lagu shidaa meesha uu ka sii wareeganaya iftiinka ka cararay aftiinkaas u daran bahalka duwaaga libaaxa gibahan dib duwaaga waxa u daran aftiinka inta kadib muddo ayaanu ku jirnay iswareysi iyo ka sheekaysiga taariikho hore iyo dhacdooyinka iminka taagan qaarkood mar dambe ayaana seexnay
allah mahadii waaga ayaa noo baryey annaga oo nabad qabna ubadka yaryar ee geela qaarkood oo dhowr bilood jira ayaa mid waliba bilaabay in uu hooyadii ama bahashii dhashay nuugo hadda waxaa bilaabatay shaqo hor leh oo muhiimaddeeda leh aniga iyo filim qaaduhuna aanu indhaha ku wada hayno cabdirashiid iyo wiilkiisa carafaad iyo qowsaarkuba waxay bilaabeen in ay geela weelal u qaataan si ay caana noogu lisaan annaga iyo ayagaba subaxan quraacdeennu waa caano geel oo xoortu ka korayso kuna jira dhakalkii amaba gaawihii lagu lisay هذا قرآن أنا. أي. المال هداية قرآن هذا قرآن هاي. ما شاء الله. barbaarta caanaha geela dhamay isla markaasina qabta shaqooyinka adag ee baadiyaha uma badna in haddii gacan la isula taga reer magaalku ay loodiyaan amaba ay legdaan in ay iyagu ciidda wax ku raquusaan mooye intaa kadib geela ayaa la kaxeeyey iyadoo loo soofinayo meel halkan aan xalay ku hoyanno geesta galbeed ka xigta gugii la soo dhaafay wuxuu ahaa mid barwaaqo ah iyadoo weli caleentu engegin ayaana deegaanaha halkanay ka mid tahay roobka xagaygu ka da'ay taasuna waxa ay sababtay in nimcada halkan lagu heestaa sii kororto horey ayaanu u sii soconay si aan u gaarno meelaannu ku malaynayno geeljira kuluc oo raggan shalay waraysanay ka mid ah iyo geeliisa waxaana wehlinaya cabdirashiid oo ah ninkaanu xalay xerada geeliisa ku barinnay waxyar kadib waxaannu tagnay xero geel ka dareeray oo ay joogaan kuluc iyo saaxiibkiis waxaa agta u yaal caano geel oo dhay ah kuwaas oo wakhti yar ka hor la lisay ka waran bal halkan iyo xaaladdu siday tahay iyo nolosha iyo maxaa la samaynayaa meeshan bad jiiftaa meeshaan jiifaa jawaab ma ku jiifaa adaa la kugu soo maray gaal markuu jiiq yiraahdaa ma waa soo toosay duqaaqa ka wardiyay habeenkii waa toosay 12 habeenka ma seexdo laakiin hadda meeshan duqaaq ma laha lagu yiri ruwa bay leedahay libaax bay leedahay meesha balaayo wuu soo doona waliba libaax ruwaaguna wuu soo galaa adeed wantay iyo wara abayday iyo wayaantii sa ruwaabuy wadon lahu gaal jira markuu dabeenka ku jiro sidii boorkiya dirtii u soo duulaabiya maalinkaas waa hoos u dayn markii duhurkii dhigaha waa laga dafaayo guusho baaday la dhihi markii deeqyeer la gaar dhigaha waa laga dafaayo darmaha waa lagu xiraa qoraxdoon duurka goon taraamada loo jara sidii saacada dhaqo amane reedoon u haray dishna ma dhaha geedugi dareesha isdaaysa dulkii meel dheer ka yimid ameelada loo dara oo markii duhurkii dhabaha waa lagu duwa daraad meesha ay martay dirraween bay duqduqo daaqsatay hawrskii degashatay inuu geel dawlad yahay dad uu yaa diidi kar waay intaa kadib waxaan u tagnay geela kuluc oo meel agteena ah daaqayay السلام عليكم. عليكم السلام. هاي حسن مقعد. حسن يجري يا عاد يجري ويتعكر. هاي. ورد بانو ماليني. والله ودل حسن دادي لبعض سدحات بهذا ورمان. وين. marka niyo Allah ku gargaar. Labada daado hore maxay ku dhash? Labada daado hore maxay? Labada daado noqdo daan rigbish. Ma jooga. Waa jooga. Alxamdulillah. Hadda way riman. Hadda waa riman Ilaahay waa mahad. Hay hadda ma qaniini waxba ka guraysa. Hadda shantii baan iyo arada yaa qalba ayaa ka jiro oo nimankii dawladda arada degi jiray. Baaniyo. Qaniin baa ka dhash. Waxa ku dhafaa geela. Gaaliyo waxa ku dhafaa Ilaahay baa mahad leeyo 24 saac oo dab loo shidin intaas 100 qof oo 24 saac dab loo shidin dad wax seexiyaan gaal ku qabaanay maxaad kula heestaa markaad hooynayso anigu hooy ma aqaan laakiin gaal markii loo heestaa aqaan bas marka la shubayo marka la shubayo heleeyo hidiyo korwaad heleeyo ka hooya dhahora heleeyo ka hooya hooya like hidiyo sidii gaashan hubiyaalike yaday ningabomi ningurraane wada hubiyaalike gasiir gadgadooyo hubiyaalike gawahaan sidii gawahaan gama yaday garaar yaa u sooy hubiyaalike guma luqun wey hubiyaalike hidiyo qaabkaasa loogu heystaa geel
waxaan go'aansanay inaannu ka tagno halkan geelu daaqayo oo aanu aadno xaafadda cabdirashiid oo xoogaa naga durugsan soomaalida reer miyiga ah waxay caan ku ahayd aqal soomaaliga oo ka samaysan dhambalo dhigo iyo udbo amaba tiirar marka ariga laga soo tagay qoyskani wuxuu haystaa 5 halaad oo irmaan ah oo geela laga soo leexiyey kuwaas oo caanahooda ay ku filan yihiin markaan tagnay kadib ayaa halaha la lisay waxaana caanahooda lagu shubay dhiil culan oo qori ah amaba geed laga qoray intaa kadib waxaanu dib ugu noqonnay warta kuudiyaaq si aan mar labaad geeleyda qaar ka mid ah darka ugula kulanno انتي نبك جرت قال عن فهد برا صح كذا اول دغالي شان هلا هذا كبلا لباتو ايشان بوديري نيرق لما جرو فائدودي ورثداسه يا لباتو هلا كبدي لباتو ايشان بوديري غير لما جرو بوديتا فائدو انت يا كدير كذا كورن بلصات كان حالة مسلية ديجان مسلية برواقة حرب وسط كل كدوجي سكوا إلهي بانو نمعي إلهي بانو نمعي جيل بدأ قالنا سافر واحد نور ده جيل يوحو قلب جيل هنت وريا محمد جاس هنت ده اللي قالي سو مهمة دو كم بسم الله نكوصل لهانين نكاسون جيل لهانين أو الدنيا آخرة بكو حساب تمهي هنتida koobaad oo muhiimada awood hadaad faahfaahin soo marka waxyaabaha lagu leeyahay ka waran sida hadii beecaysato kale hadii aad raadato kale hadii aad qalato kale iyo maalisti oo ku dheer faahfaahin ka bari hadaad qalato waa dhereg hadaad gadatana waa dhereg marka walaale ninkii san lahaanin hantida la yaqaan way الحمد لله إلهي نمعولي دي أسنا سيو برما كوكا ياه انت سان إذي شيء قالاني قالوا واكرهبا أنا أولادك كو كرسدا مانا قبيستا إيا بيه هلان عبادة الله يقموض سكا هدين لتنا وحبك كما غريب وحي إلهي يقوقي واشيغ وانا اسكديبا مركا انتاس أمبان وانا كنو ولادا دي إلهي بأسيي قطها إيا مالا وكنو ولادا maalintii saddexaad waxaan safar ku tagnay warta sariiraha oo u dhaxaysa Arabow iyo degmada Bu'aale inta u dhaxaysa ayaan kula kulannay geel laga soo safriyay dhulka Soomaalida ee Kenya ay gumaysato loona wado suuqyada magaalada Muqdisho nin ka mid ah raggii geela ka xeenayay ayaa inoo waramay xilli uu geela yara daajinayay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaaga cali geel badooda halkeebad قالوا جاب لك ودولك الصومالية كينيا بمستي كمدة واي مركا والمرفق إلا إمسا صوته جرني ومدلو وكا إلا أنت أيوة جاب قال كينا أو يعني ميل بادي أو إرجعون أو ما هو صومالي مركا هذن إلا أيوة وصل حمل إمسا ما الله هذا سوده هذا وحنا شفنا دولات بوالي مركا إمسا سوده كولا تمر إلا شن لا تبرين ونقول لمن والله في صعب إن شاء الله مركب واحد صور كبحثها وتشير لا مش شلو ما لا خاف الجيل لونه وديو لونه ضاجنيو والأرواح شرح أنا ورد الجيل واحد بديه نقول بس كما كحين كرو قول محاول نقول بس كما كحين كرو وأوار لك حسنايو oo kaas oo wax dhibadan inaan hadda hor taagna maarta door way dalkiisu u jeeda hal walba meesha ka tamaan adeer door oo ka marka tusaale hadda waa baajanaysa war ma dhabaha lagu riday la waday diiw adigu ilaa iyo 9 saac 10 saac inta dhaxayso way ilaa caawa ma lahayn marka maya adigu 4 saac ilaa 5 saac meelahaas wax ka badan ma la filaymaysa on kartay markii la wado dabadeed maxaa la yeeli ولا دقايق أو هرشين بالكرسنايا أو الأنتينايا أو منها كيلان كستو سنة بريف وقادنا ونسنايا ووضال وفريسنا هادنا إلا هالساعة iyo meelaha hadana raashin baa loo karsanaya adigu waarko amal hadana wadada lagu raadin ilaa 3 saac bar wixii ka dam hadana waa la duwayaa waa sidoo kale hadana uu daaqaya marka saacadana waa la wadayaa saacadana waa la daajanaya saas baa ilaa xamar lagu wadayaa lagu geynaya way hadii arintaas arin dhib yar ma maadaama saacadaha ayaga xuquuqdooda ma yaro shaqaalaha
حقوق ما يرو معناه وحلا حقنا وين هلينا أوكو كا إلهي حقوق بركة مركا مسافة عاد فوق شريتان كده أما مريتان كده مياه كودالي نيو هدي كله أديكو من بني عندنا تاي اللي أود لا أورت هبل عافمات وسوي حاصل وحبوا كلهم هو أديكو اسكت دال بحث ما اسكت تجي صار نظاما أوكا إلهي بقى مقت وحول بس كله أوكا شغلة مركا جلودسته أو سفرنته إمسك شو جرت نيو جلودستني وما مركا يجوا أم هذا markii hore horta anigu nin 42 sano jiraan 42 sano jiraan waagii hore labaan ku bilaaway labaan ka shaqeynayay ha oo hadaba Soomaaliland ka haylo gaarsan baa wajeeran aaday hadwaan soo hadana saladeedan ku laabana wixii kadib hadana labaan hore inaan soo safray on dalka ku tagin on gaari ku tagin on xoolo ku tago hadana soo kala fareeyo Allah wada inaad digayso hadana geel soo kaxayso هديو شوف سرقاري لي سيمن ساعدتك هدي اللغوسيو سقال ويلي صابر ساحيو نيرك dhanka waqooyi ee degmada Bu'aale waxa ku yaal dhashay weyn oo la yiraahdo Radiide kaas oo geeriyo geeslayduba ay ka cabaan هديو تيري توانويل وصن أطلكيدا أنو كلا تجي يا يسوقتي تجوغاسا أو إسقاطما تيربيلي هديو waxaadna arkaysaa xoololeyda oo inta naftooda hilmaamay xoolaha tooda ka taxadeeraya waxayna ariga iyo lo'da ka hormarayaan iyaga oo ula wata waxayna ku garaacayaan biyaha si yaxaasku uu cararo reer koonfurku waxay yiraahdaan cil yaxaas loo qabaa webi loo bacdaba aban qurbac goowe oo gujeen yaan laga gooy hidiyo sitaa ka duwan geela badana yaxaaska loogama baqayo amaba loogama cabsi qabo marka laga soo tago ubadka yaryar inkastoo mararka qaar ay dhacdo in uu neefka faruuryaha ka goosto ubadka ayaa meel gadaala lagu reebaa waxaana dhasheega lagu soo deeyaa amaba lagu soo kaxeeyaa geela waaweyn oo keliya qaar ka mid a geeleyda aan dhasheegan kula kulannay ayaa si qoto dheer waxay uga hadleen wax dheefka geelu leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة مقعك عبد الولي عبد النور عبد النور وربعين ما تيجي صوب وقطي واحد نظر تاب الجيل يوح وكل شو استهلا جيل وحقرة نور البقرة نك اللي ترى كل نور حاسك كل نور قرنيسا حرورتا كل نور مسافة كل نور أنا سادون إيسا فيليب كيساد عنا إيسا واتفرسان إيسا والعقد دن أو مال بنك هو جوجا لو رحت نيجي يرسلوا وحاول اشتغل بكم بوجله هرتك بكم بوجله هي $10 كان كلا كم بوجله هي ها ولا بكون $1 لا برت هذا قاطع قيمة له مرنا وكرس مرنا وجمل لا برت جمل هذا قاطع ولا بكون حتى تكون هذه ها وحاسوق على نورش حاسوق على نورش حاسوق نورش ها دب بدنا ولا يسكتر خير سروي نورش adigoo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 dhahay dhibkiisa waxa kamid ah oo dhafar badan baa loo maray soo jeed badan baa loo maray oo boqolo badan baa loo maray socod badan meel xun buu kaaga dhal meel xun buu kaaga dhum meel xun buu kaaga jirin maxaa yeelay islaamna uusan deganin biyana aan laga helin baadkeedana uu xun yahay حدافير عدلا أو بحل يا محن كردا إرجع عنه يكوه جاي ملقي رجعنا إرجع عنه واحد جنب اللار بدي بينا على الحين رات كيسنا وسيع عادي والله جعل هذا كم هركة نفط هذا نقطر بيجلسه دحين هتكون عضو أنت موبايل بعض الله بحسه واجر موبايل كجنسك وبابيشر لكن هذا موبايل بالله هلا ورماش عشان ضعف لها قارها اللي لسه قارو geeleedan iyo kuwa kale oo aan sanadihii la soo dhaafay loo kulanay waxay inoo sheegeen in geelu u batay oo uu barakoobay ka gadaal markii ay sekada ka dhiibeen kitaabka sidoo sheegay lama kaniyana uu baraka badan yahay waa fiican yahay
haddii la daamariyana waa xun haddii sakada in laga bixiyo sadaqada laga dhiibo musaafirka laga nooleeyo waajibkaanu geelu leeyahay haddii la daamariyana ma baraka badno waa sidiisoo dhan ba waa qaboobeynba ninka la jiraa baktinahayo asagoo aan quruxsanayn dhib fara badan baa la darsaayo baadidiisaa fara badan jikradiisaa fara badan micidiisa iyo dugaagiisaa fara badan marka haddii intaas la makaniyo musaafirka laga nooleeyo sakada laga bixiyo sadaqada laga dhiibo maxaan ku yiraahdaa waxaa weeyo baahidiisa ma dheeraato bahal wax kama dilo iska barakaysan yahay oo kitaabka la waafajiyo gobolkan Jubbada Dhexe waxa uu ka mid yahay dhulka ballaaran ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka taliso bulshadan ayaa helay nabadgelyo buuxda kadib markii la isku xukumay shariicada islaamka geelaydu waxay inooga warameen dhibaatooyin ay soo mareen xilliyadii dagaalada sokeeye iyo nabadda iyo horumarka iminka ay haystaan ilaahay baa maal nabadgelyana uma qabna dadku aabii hooyo way amnigaana ka dhigay nabadgelyo intaan gaar Soomaali intaan meel isku timid Soomaali intaan meel isku timid oo ardaal kasta uu ku jirto ikhtiyaar ku jirto culimo ku jirto caamo ku jirto oo nabadgelyo ku kala tago amni kormaan asay hortaagan hada oo mari asay hortaagan oo mari waayada hor maxaa soo martay waxaan soo marnaa dawladda Arab waxaan soo marnaa oo wartiisaan waxaan soo marnaa gaa markaan kaalin ka saaro kiilo wadaba intuu soo ordo inuu kaalin naga tuuro on lacag siin markii laba halad cadaanba intuu soo ordo hadana ya kii kale loo wadaa naga tuuro waaga hore isku dibagadoon ahaan jirtay oo dabeedii afkeeda isku xiray oo hadii aragta dhibbiin ala soo maray hadda dagaal xun ay dhacayeen oo dadka nin walba bacdi saaysan hatee laga xoogay hadda ninkiiba aad aragta habartiisii adoogiisa oo la noqdo dadku kulli walaalo waay صح maya dadkii shalay laga yaabo inay qabil u dirir jireen bal maanta ka waran sida ay isu xariirinayaan si sharaf badan daawa dhaxtaalo dar ilaahay baa maxaan ku raadayay diinta loo fahmay waanadii iyo maxaan ku raadayay wacdigii baa la qaatay si sharaf badan baa maxaan ku raadayay hadda yaa loo adeeganaya loona nool qabiilaysi baa jiray gobol baa jiray maxaa yeelay dadkaan hadda kuntii iska jameecada oo nabadoo kala adeeganaya xilka iyo xigaalada ma jirin waa la kala qolqolnaa اسبوع يرمى كل الجوجا بدي فول حمو اسقلتها دي الجري ولا سلينجري فمل درس انا كاريه بله دنوب يدم بفربضا والنار لكم متاكد الجري هذا الهي بام هذا وحاول قال يا اسلام قال او لغه رجود يا اسلام بهذا وي wadanka Soomaaliya waxa duulaan ku jooga shisheeye cadaan iyo madowba leh wuxuuna xasuuq u geystay kumanaan Soomaali ah iska dadka shisheeyuhu wuxuu bilaabay in uu xoolaha laayo gaar ahaan geela asigoo adeegsanaya hubka culus iyo kan fududba ciidamada Kenya iyo kuwa Uganda ayaa gobolada Gedo iyo Shabeellaha hoose sanadihii la soo dhaafay marar kala duwan waxa ay ku laayeen geel fara badan shisheeyuhu wuxuu aaminsan yahay in ninkii geel aan la gumaysan karin uuna mudan yahay in la ciirteeyo si ay u sahlanaato in la maamulo geeleedu waxay ka warqabaan cadawtooyada gaamurtay ee shisheeyaha iyo damaciisa guracan ee Soomaaliya ku wajahan waxaan la soconaa ciidamada shisheeye